injiilka sida Matayos u qoray cutubka 22aad Ciise ayaa u jawaabay oo mar kale mas'alo kula hadlay wuxuu ku yidhi boqortooyada jannada waxay la mid tahay sidii boqor wiilkiisa aroos u dhigay addoommadiisii ayuu u diray inay u yeedhaan kuwa arooska loogu yeedhay mana ay doonaynin inay yimaadaan haddana addoommo kale ayuu diray oo wuxuu ku yidhi kuwii loo yeedhay waxaad ku tidhaahdaan bal eega cuntadaydii waan diyaar gareeyey dibiyadaydii iyo neefafkaygii buurbuurnaana waa la qalay wax walba waa diyaar ee arooska kaalaya laakiinse way fududaysteen oo iska tageen mid beertiisuu aaday mid kalena wuxuu aaday baayac mushtarkiisii kuwii kalena addoommadiisii ayay qabteen wayna caayeen oo dileen laakiin boqorkii markuu maqlay ayuu cadhooday oo askartiisii buu u diray oo baabi'iyey kuwaasoo dhiig qabay magaaladoodiina wuu gubay markaasuu addoommadiisii ku yidhi arooskii waa diyaar kuwii loo yeedhayse ma ay istaahilin haddaba taga meesha jidadku ku kala leexdaan oo in alla intaad heshaan arooska ugu yeedha markaas addoommadaasi jidadkay u baxeen oo ay soo ururiyeen kuwii ay heleen oo dhan kuwii sharka lahaa iyo kuwii wanaagsanaaba gurigii arooskana waxaa laga buuxiyey marti laakiin boqorku kolkuu soo galay inuu martida eego wuxuu meesha ku arkay nin aan dharkii arooska qabin oo wuxuu ku yidhi saaxiibow sidee baad halkan u soo gashay adigoo aan dharkii arooska qabin wuuna iska aamusay markaasaa boqorkii wuxuu miyeydinkiisii ku yidhi lugaha iyo gacmaha ka xidha oo gudculka dibadda ah u tuura halkaas waxaa jiri doona baroor iyo ilka jiriqsi waayo kuwo badan baa loo yeedhay laakiin kuwo yar baa la doortay markaasaa farrisiintii baxeen oo waxay ka wada hadleen si ay hadalkiisa ugu qabtaan waxay xertoodii ula soo direen herodosiinta oo waxay ku yidhaahdeen macallimow waan ognahay inaad run tahay oo aad dadka jidhkayda run ku bartid oo aanad ninna u weexan waayo dadka wejigooda ma eegtid haddaba noo sheeg maxay kula tahay ma xalaal baa in cashuur kaysar la siiyo ama inaan la siin laakiin ciise ayaa sharkoodii gartay oo wuxuu ku yidhi maxaad ii jirrabaysaan laba wajiilayaalihow itusa lacagta cashuurta kolkaasay u keeneen diinaar wuxuu ku yidhi yaa leh masawirkan iyo qorniinkan waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay oo goortay taas maqleen way yaabeen wayna iska daayeen oo ka tageen maalintaas waxaa u yimid saadukiin kuwii odhan jiray sara kicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu yidhi haddii nin dhinto isagoo aan carruur lahayn walaalkiis waa inuu naagtiisa dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaa nala jiray 7 walaalaa oo kii u horreeyey ayaa guursaday wuuna dhintay dhalna ma lahayn wuxuuna naagtiisa uga tegey walaalkiis sidaas oo kalea ku dhacday kii labaad iyo kii saddexaad ilaa kii 7aad markay wada dhinteen dabadeed naagtiina waa dhimatay haddaba wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay 7doodii keebay naagtiisii ahaan doontaa waayo kulligood way wada guursadeen iyada laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad khaldan tihiin oo garamaysaan qorniinka iyo xooggeeda waayo wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay dabadeed layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha ilaah oo jannada ku jira laakiin xagga sara kicidda kuwii dhintay miyaydnaan akhriyin wixii ilaah idinkula hadlay markuu yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool dadkii badnaa goortay taas maqleen
ayay waxbaradiisii ka yaabeen. laakiin farrisiintii goortay maqleen inuu saadukiintii aamusiyey ayay isu yimaadeen, oo midkood oo sharciga yaqaan ayaa wax weydiiyey isagoo jirrabaya oo ku yidhi, macallinow, qaynuunkee baa sharciga ugu weyn? kolkaasuu ku yidhi, waa inaad rabbiga ilaaha ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. kan waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya. ku labaad oo u egna waa kan, waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay sugan yihiin labadan qaynuun. kolkii farrisiintii isu yimaadeen ayaa ciise wax weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, yuu idinla yahay masiixu? waa inayo? kolkaasay ku yidhaahdeen, waa ina daawuud. wuxuu ku yidhi, haddaba daawuud sidee buu ruuxa ugaga yeedhay rabbi, isagoo leh, rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi, midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo. haddaba daawuud hadduu ugu yeedhay isaga sayid, sidee buu wiilkiisa u yahay? ninna hadal uguma jawaabi karin, oo maalintaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu mar dambe wax weydiiyo.